salaamantihiin waxa socdaalkaygu labuu ahaa markii hore waxaan imid dalka Ingiriiska oo aan joogay bil waxaan casuumad ka helay jaamacadda London qolada la yiraahdo School of Oriental and African Studies oo samaysay center poetry translation center samaysay ayaa waxay tarjumeen waxay bilaabeen inay tarjumaan gabayada aan reer Yurub ahayn gabayaaga aan reer Yurub ahayn inay wax ka tarjumaan bay bilaabeen waxay doonayeen afka Ingiriisiga ah inay kobciyaan oo ka sii kobciyaan intuu maanta leeyahay oo ay ku kobciyaan dhaqamada iyo suugaamaha kale oo ay u tarjumaan isku dayaan isku tarjumaan u tarjumaan waxaan ka mid ahaa 6 gabayaa 6 international poets ay ku casuumeen jaamacaddu casuutay 6 gabayaa oo isaga yimi anigoo af Soomaaliga ku hadla iyo Afghanistan iyo mid Hindiya iyo Indonesia iyo Mexico iyo Sudan ayay ka tirsanayeen waxay sameeyeen gabayadeedii bay tarjumeen waxay u tarjumeen afka Ingiriisiga bay u tarjumeen waxaanu maray gobolada Ingiriiska oo dhan bay la bariyeen oo aanu ka akhriyeynay gabayadeedii oo u tarjuman afka Ingiriisiga dadka loo akhriyayna waxay ahayn dadka Ingiriiska ah safarkaasaanu maray safarkaasaanu soo maray dhalinyaradiina waxay idinka xigta click baa idinka xigta ila taabata gaari bal google-ka weydiiya gaariye weydiiya dabeedna isaga idin soo saaraya waxaa tahay gaariye markaa weydiinaysaan waxaa weydiinaysaan GARRIYE saasay u qoran tahay dabeedna gaariye oo dhan buu idinka sheekeynayaa sheekadaasa soo gelaysa haddii kale waxaa gelaysaan World Poets Tour poets يعني شعراء العالم بالغ هذا يا بركة tour أي لقى tour له كانوا وادجلي كتان لكن سمرا واحد يفضل يدخل قارية قلبا تبدو هليسان حاجة دمبي بركة تتان أي كاسيد لجليسان وحيار كاخري كبيرة يدي كوي إنجليزي فرشكي إنجليزي قالوا وهليسان فرشكي إنجليزي واحد ترشبي كبيرة قال يراهو ديفيد هارسنت أي ترشبي كبيرة يدا أو ترشبي في إنجليزي وقبياغا wuxuu helay jaa'isadii forward prize kii sanadkan for the English collection of poems isaga helay collection kale waxa la yiraahdaa Legion hada Legion baadana LEGION halkaasina waa ka helaysaan sheekadaan ka hadlay waa safarkayga halkaa ku saabsan Ingiriiska aan ku yimi dabad waxay casuutay wasaaradda waxbarashada ee Sweden oo macallimiinta af Soomaaliga ka dhiga dalalka waqooyiga Yurub ayaa isugu yimi workshop caynkaas ka qayb galay oo Stockholm kala qayb galay oo aan ka wahaleynay bal sida af Soomaaliga ugu wanaagsan ee loo dhigi karo loogu dhigi karo dadka ajnabiga ah dadkiina u dhigaysan oo kale horta safarkaygu kaasuu ahaa labada hay'adood baa loo ibi inta nimanka aan ku yimina waa intii loo gaarkaayay aan ka dhaxsiibay ilaa markaa la kulmo communities-ka dee markaa la kulmo beelaha Soomaaliyeed ee Yurub ku nool ilaa la kulmo waa intii aan ka dhaxsiibay weeye waana Ingiriis oo bilow yahay iyaga ma waan arag bilow waa joogay ma arag oo maanaan kulmin oo way sugayaan berita waxaan ku leeyahay Oslo galka hore galka dambaba ayaan ku leeyahay galabta caawan idinka gudaya hadii alla yiraahdo kamaal hadda waxa igu horeeyay marka Hargeysa ku noqdaan uma leeyahay ismana dhiibayo dhulkii baan ku noqonayaa وردي في قيمة ولا كده وايو إنت أسوا سفر كيا هذاك جذبه وحنكون بلعب لها أفكا ما عنده يتان قول استكهب وحن كلاه لي أفكا
luqo waa luqada la yidhaahaa afka inagu af baynu naqaanaa oo waxaynu luqada kala macno dhignay malaa waa halkay ka soo baxaysaa afka ah marka inaga iyo cafarta iyo nimanka lagu yidhaaho oromada iyo afaan bayna inaguna af baynu aniguna afaan bayna waxaynu waxa ereyga luqadu wuxuu ka soo jeedaa afka uu ka soo baxayo dadka qaar carab bay u yaqaanaan luqada afka lagu hadlayo carab bay u yaqaanaan lisaan al-arabi lisaan bay kolayaan qoladna waxay kolayaan language waa lang haddaad laatinka taqaano waa tang waa carabka qoloyinkaas waxay ula baxeen carab inaguna af markaa ma kala fogin carabka iyo afku waa wax isku jira oo qolo walba see u sawiratay dhinac uun bay ka egtay horta luqada afka markaa ka hadlayo afku waa wax u gaara baniilbashar bini aadamka ayuu u gaar yahay waa waxa keliya ee aanay inala wadaagin waxa kale ee ilaahay abuuray inalama wadaagaan marka laga hadlayo afka waa waxa bini aadamka ilaahay kaga soocay waxalaalo waxa kale uu abuuray oo dhan uu kaga soocay waa wax ilaahay ku manna sheegto isku weynaan ma halkan inuu ismaawilino waxaynu isugu nimi inaan balidi ku baraarujiyo nimcada ilaahay bixiyo nimcada ugu qaalisan nimcooyinka ugu qaalisan bay ka mid tahay inaynu wada hadlaynaa waana nimca uu ku khaas yeelay basharka bini aadamka oo keliya oo aanay lala wadaagin walaalaheena dabeeruhu iyo bisadaha iyo lo'du midna lala wadaago inaga khaas ilaahay loogu yeelo waayahay nimcadaasu marka ilaahay uu tirsanayo nimcooyinka uu inagula xisaabtamayo ee ilaahay haddaa suuratu raxmaan la soo baxdaan ilaahay wuxuu bini aadamka iyo jinka iyo insiga ayaa wuxuu ku celcelinayaa maxaa ku dafiraysaan jinka iyo insigow nimcada aan idin siiyey maxaa ku dafiraysaa buu ilaahay ku soo celceliyaa fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan marka ilaahay jinka iyo insiga la hadlayo wuu ku soo celceliyaa isagoo u manna sheeganaya wuxuu ku bilaabaa nimcadaa uu sheegayo wuxuu ku bilaabaa inuu ilaahay insiga siiyey waxaanu dadka kala siiyey waxa bini aadam kale oo siin oo raxmadiisa uu ku siiyey ilaahay wuxuu yidhi arraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan taasay ku jirta marka ilaahay khalaqa alinsaan markuu leeyahay macnaheedu maaha inaanu wax kala abuurin ilaahay wuxuu abuuray wax kasta oo kownka ku leer oo insaanku uu ka noqonayo luqdad keliya uu ka noqonayo marka loo eego farahooda ayuu abuuray haddana halkaa wuxuu ku xusayaa gooni buu la baxayaa ilaahay khalaqa alinsaan waayo wuxuu ka hadlayaa wax iyaga u gaara oo kuwa kale aanu siin khalaqa alinsaan callamahu lbayaan ilaahay dadka ayuu abuuray waxaanuu baray inay wax isu bayaamin karaan waxaanay wax isugu bayaamiyaan waa afka weeye insaanka oo keliya baa arrinkaa lagaga hadlaya waa raxmadaha ilaahay bixiyo ee uu leeyahay bal ii sheega waxaa ku dafiri karaysaa raxmaddaa ilaahay uu ina siiyey ee afka la yidhaahdo ee aanay cid kale inala wadaagin raxmaddaasu waa waxa insaan inaga dhigtay inagu inta kale xayawaanka weylo alinsaanu xayawaanun naatiq baad leedahay waa xayawaan baynu nahay laakiinse waxaynu leenahay xayawaanka kale xayawaan naatiq xayawaan hadlaya baynu nahay inagu ilaahay waana nimco gaaro inagu aynu leenahay hadalku muxuu kale keenaa inaad hadashay waxay keentay inaad caqli yeelato caqliga iyo hadalkaa isku xidhan hadalka iyo caqliga ilahay isku xidhan haddaad imka istiraahda fakir adigu qof kastoo hor fadhiyo haddaad istiraahda fakir waxaad ku fakiraysaa afkaaga inta eraya taqaanaa baad ku fakiraysaa bini aadamku wuxuu ku fakiraa qof waliba inta eray ee uu yaqaano ayuubuu fakiri karaa faakabularigaaga wax dhaafsan haddaad cirka u baxdo dhulka u baxdo kuma fikiri kartid waad ka hadlaysaa kuma fikiri kartid bini aadamku ka faakabulari badan yahayna ka caqli badan faakabularigu caqliga iyo faakabulari erayadaa isku xidhan erayadu waa weelka lagu fakiro waa tuulka waa qalabka lagu fakiro ilaa iyo saaka markaad soo toostay qof waloo hor fadhiyow mar qura waad hadlaysid
وحصل هذا الكوا لبعون إن الهوس وهالليسو إن الكرو هالليسو ولا بدأ بيتون you are either thinking silently or thinking loudly أنا أقول إنك I am thinking لا كربان وهاللي يعني كربان وهاللي لكن سلماتي وهالليس على ذكر ويدان هاللين ويدان كنا واقعيني وهالليس مرة لذين وتقدر جابنا سير من الموديني فرح ما يسليد يعني بالعالم كوخ يعني إنت يهرب فرد إلى يساك مركز توستي وهالليس وهالليس وحي لما تود فكريسي هداد فكريسي وهالليس هداد يبغى يستعمل يربع قول له ترى بس كي بكاتك هي ترى قاريك وفاع عنده وحبط هوسنا كله سلام ده إلهي هداد قصة هالليس هذا ودبي هذا هالليس صار شيء ود فكريسي هالليس ترى هالكا مالك والله دي قحوتنا هالليس هذا يشرع بقى واحد كامل يعني بالآدم هو فكرية ويكون فكرية أفكار لغة الله ذي ما تفكريسه وحارد هالليل بك تريده مركع تريده أو كلي هذا الليل أنت كلا أتوجه دو هذا الكوح الوجه شيء ده واد فكر هذا الكي يفكر كيف أسمع معنا هوس بعده هذا ليس واد فكر مركع هوس وهذا شنو وحلا واد فكريسه مركع كرو هذا شنو وحلا واد ليس لما بقى عمر ولا كلام أحد يروح وافكر كيو وافكر كيو مركع بالآدم كو وحو كو هذا وحا يسكو حنا هذا الك يوحى يسكو حنا فكرك عقلك أيا حيوانك أيلو لغنا ما لا أريعكو هذا زيرو ويفك بللقوم دبالكو وزيرو إم سيريبو يغانا زيرو ما عليه واحد لويه ما فكروا دبالكو ما فكروا واحد ويلكو كو فكر يبقى هي بسيط وهذا الك واحد دول يعني معادلة ركتان قيمة هي لا تحي دبالك اللي أذكو واحد سنرتي ونعمة الكلام إن هذا ليس ما كان وحلاله وحي أنا خليني ما فكران واجب واي قلبك لو فكرا وهذا كو ilmaha yari marka uu yar yahay oo cagabulyool iyo saablig ay gurigeena la joogo ee aanu hadlayn inta ay urursanaya bidbidhay taa inta dadkeena hadlayu dhageysanaya record buu sameynaya uu record gareynaya hadalku record gareynaya mar allaala marka uu helo vocabulary uu kugula hadli karo marka ilmaha yar helo ayaynu la ilmihii wuu garaadsaday garaadkiya waxa isku xidhan hadalka maalintan eraya kugu filan heshay baan ayaa fakir ayaa xasuus aan xasuusatana kugu horeysa intii noloshaada ina laala intii aan erayada lahayn ma xasuusatid xasuustaadu waxay ka bilaabantaa garaadsiga wuxuu ka bilaabaa markaad eraya kugu filan aad heshay oo ku fikirtay markaas horeysa waan garanayaa halkaas aanu ka guureynay dirqi baan ku sii waa marka 100 kalbood baa laga yaabaa markaa lahayd markaad dirqiga ku sii galayso ama 200 kalbood oo aad isku yeelkii karto aad markaa yeelato horta waxaynu ka hadlaynaa waa waxa ay hor yaala markaynu af ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa qalabka lagu waxaynu ka hadlaynaa qalabka ilaahay dadka ugu mana sheegtay waa qalabka ilaahay leeyahay wa 'allama aadama al-asmaa' kullaha marka ilaahay leeyahay wa 'allama aadama al-asmaa' kullaha luqooyinka oo dhan baanu barriba ilaahay leeyahay nabi aadam waxaanu baray inta af lagu hadlo dhan oo af Soomaaligu ku jiro ayaa ilaahay baray nabi aadam marka uu leeyahay waxbaan baray yuu wax baray wuxuu ka hadlayaa alisaanu iyo bini aadam ba laga hadlayaa marka af laga hadlayo waxa kale ila laba wadaagaan marka laga wada karamna bani aadam ala alalamin waxa lagu karaameeyay bini aadamka lagu karaameeyay afka ka mid ah ee bini aadamku horta nimcadaasan maanta idin hadlay waxaan kala hadlayaa iskubayna soo ma weela tagin nimca la ilagu xisaabtami doona ba ka hadlaya oo ay tahay nimcada la ilagu xisaabtami doono oo la ilagu أمانة على أعناقنا ويا وأمانة وارتين سلوي أو أي تهي سيدا أي لوجا فايد ويا هدانا في ترين حضارة دي ما تتين أفكوا حوية حضارة الوسطى وحلا روح هيسترية تاريخ هدانا في ترين ديني ما تشتو هدانا في ترين دغل ما تشرو يعني وحاسين كحضر ياسين فلاسيش كبلا آدم أفكوا كفريا أو كم بدي هاي أفكار اللي كوا حضر له مركل أفكار يكتو afku waa xaweeye waa baadi sooc marka afkii la sii kala qaado ee bal bashar ay ka nimaado qolo waliba afkoodii ku hadashaa qolo waliba afkeedaasi waa u baadi sooc waxaan hadii finger britiska la qaado marka qofka laga qaadayo individualka waxa laga qaadaa astaamaha suulka laga qaadaya astaamaha suulka laga qaado
ووح خصوصيات كاجع قف كستا وأخاص به بوك قدوية هي وهو يدي بوك قدوية قف خصوصيات كا ووح أديك كوجار كأديك كيان جولية أو كدوا وح حري أوردن فرت الله يا قادا إمك واحد كتر ما يدها إيش أنا كوير الوقت هذا لمك أفكونا سيدا هل كفيجر بريدسكو كجتشي رقفك أيا أفكونا شعوب توجتها وحوي وفيجر بريد كي دتك سومالي هو it's our own figure بريد وي ووح كاسا عودك على ووح أنا يمكن قولك قتيل ولا فدين ما هي عربتي لوجي بويدي ما هي سولسكو لوجي بواي أنت اللي هكذا فردي وايو وحيل هاي فيجر بريد جولية بينو هاي يعني بعد صعود جولية إلا بينو وطن هاي أو بعد صعود سيل سوغرنا بعد صعود أفكار صومالية مركا مروحون لقونا يا وح كاجود ما دتك إلى الولاجة ما كانوا أف صومالية وسودان دقننا وحيلو كحضلينا بعد صعود إلى كحضلينا كيان كصومالي وكتيرا أفكار ووالك دقة كانوا اللي بكتيرا أفكار وحلا لو وحنا ندق شخصيات الصومالية أفكار الصومالية أباسبية مركا قيمها سيل لا داعي وأنا واحد بالعالم كفار بالعالم كنتوا أفكار سبرتو أيوة وليبا إسكود ضيا إنه كفر ديو كقصبه تديوك عليه أنتوا ساقوا برتو أيوة وحور ربا إنه تدخلوا كقصبه إذا كشيلك الرولي ده اللي كسيره أيوة وحلا يسمح لي أفكار برتان عيال ربويسر وحلا والقوفر دي أفكار أقول لك هاجي إسكندرية عد كقصبته أنا كنت جيبه أو يصير يسولش كلام بعد صلاة يسوي يسولش كيرا واطيب أفكار عين كاسح هذا تعرف خير أهو جود بركة واحد دولة إن أودي السوقات تبركة ما حيكون عنيسة أفكار عين كاسح أفكار قيمة عليه markay suugaantiisa halkan isugu dhimi oo gurxaadka uu soo sameeyay maxay ka noqonaysaa suugaantiisu waxa weeye waa labeetiisadii waa labeeta afki baa si kala baxaya afku markuu si kala baxo waa afka labeetiisa weeye sare weeye suugaantu waa inteeda ugu subagsan weeye hadalka intiisa ugu si qiimaha badan weeye waa intiisa ugu quruxda badan waa intiisa ugu qotada badan suugaantu waa هذا بس سوقايا هنو قاري كل ما هذا وافق قارو ندخل سوقايا أبو ندخل سوقايا أبو ولا سوقايا كتعال أو نجستو بين سوق شرايب خوف كسوقايا هنكا أو كما سوي كتريا إيو كوح قربا كشكوين كقرار سوقايا كواد كتيرة يوسك ساري كاسورة شكله تحضي ترابط ولا بدو بسوقاتي كبدي هذا دول يسوي إلى ذلك لحظة وح أخرته أما أي كل جيستان وهذا هو خريطه هذا دوري شو سائل هذه شو لا ده السوقان بكهل يا أبتيحات أبتيرامات محل يا جبهي ويسوع وحل يا جبهي لو شيء بس كحل كويس سوقاته أفكو ما هو حيرو ولا يسكحه ويوتيليتي ووحلا استعماله ولا عادك سدو أو عادك سدو communication إن لو وضح له أو لو وضح له واحد دولة يا إنا كوسو قاسيو واحد دولة يا إنا سيدا وقوة نكسب كوسو قاسيو أيها تعالي مركز سوار كان ضيو سيدا وقوة بدن إنا كوسو قاسيو واحد دولة يا سورنا بس كحدا إذا كوشرا أنت سوق بيو إنا بس كحدا لا كوشوا سيدا يجوا سورة جالس أوي سؤال وعوي سيدا يجوا سورة جالس هتاسو وحيجوا سورة جالس إلى فهمه قالوا إبن خوارج يحرف الرياء وإلى فهمه دت كي دقيسنا يا وامحي دت كي دقيسنا يا وحي كخوبيين وكمبيوتر الرياء بلا ما يحرف الرياء أو كمبيوتر دولة يبعد كي وقال سراي ما يحرف الرياء أو بل البشر ليلا بلا آدمه ما يحرف الرياء كمبيوتر كاسو ورربوه لا معلومات هالكاسا أوصل ترى لهم مسكح وكمبيوتر مسكح عليه هالكاسا مسكح يدي كتير كو مسكحداسي waxa ka buuxa warar baa ka buuxa warar ka buuxa halkay u soo maraa baa su'aala wararka maskaxdaada ku jira halkay soo maraa waxay soo maraan dareemayaashay ku soo waa ina fahamsanaytaa waxay ku soo maraan shan dareeme urta iyo maqalka
iyo dhadhanka iyo aragga iyo taabashada shanta xawaasood baa la yidhahaa wax allaale wax war inta war maskaxdaada iminka ku jirtaa waxay kuu soo mareen shantaa dareemo un ama waa midaad maqashay ama waa midaad aragtay ama waa midaad taabatay ama waa midaad dhadhamisay ama waa midaad urisay weeye si kale waxay kuguma soo degay qof midii sheegay waxay ku soo degaa mid soo ma ragaalka fadhiya shantaa dareemo unbaa warku kuugu yiba kombiyuutarkaaga iyo macluumaadka ku jira shantaa dareemo buu soo maraa maxaa dhiga layga baahaya markaa waa inaan markaa doolayo inaan ku hadalteeyo ee aan gabyayo ama wax qorayo waa inaan shantaa dareemo kuu soo maraa shantaa dareeme sidaan kuugu soo maraye waa inaan aqaano oo aan ogahay ciddan aan la hadlayo shantaa dareemaa loo maraayo u maro waa inaan isiraahdo mar baad urtaada kuu soo marayaa urtaada ayaan mar kuu soo marayaa anoo gabyaya waxaan leeyahay arooryada hore daruuro kodiyo ufada roobku way udgoon tahay baan leeyahay markaasaan ku arkay adoo sakay la raacaya ilaa sakaa kuu soo maraya waxaan adeegsanaya waxaan gabayaagaasi wuxuu adeegsanayaa xaasata sham inaad wax uri karto ayuu adeegsanayaa urtu kuu soo raacaya markaasaa wallaahi waa runtiisa de imisa ufaad soo urisay arooryada hore daruuro kodiyo ufada roobku way udgoon tahay buuri ninkaasi wuxuu inoo soo maray dareenka urta waa tahay mar baa waxaa kuu soo marayaa dareenka aragga ayuu kuu soo maraya xaasadda araggu kuu soo maraya wuxuu odhanayaa sidii cirku hooray meel cosob leh ya salaam sidii cirku hooray meel cosob loo cadceedi u soo baxdaa tahay buu ku leeyahay indhahaagu markaa adeegsanayaa waxaasaa waxaad sawiranaysaa meel cosob ku yaallo oo roob ku da'ay oo roob ku da'ay oo dabeed cadceedii walac ku soo tidhi oo hadday doonto jeegaani ka dab wuxuu adeegsanayaa indhahaagii markaasaad odhanaysaa halkaasi qurux badanaa wuxuu kuu soo marayaa arag gabayagaasi aragguu kuu soo maray dareenkaaga araggu ayuu adeegsanaya waaya mar buu wuxuu kuu soo marayaa dhadhankaaga xaasada dhadhankaagaan kuu soo marayaa mar waxaan odhanaya wuxuu yidhi dhowr caano laga soo lisay oo yaran wuxuu ihi goortaad dhartaabaha jidhkaba dhididku qooyaa buu ihi goortaad geelu ka hadlayaa dhowr caano laga soo lisay oo yaro dhanaanaaday dhadhankii buu kula galay adigoo yaro dhananayaad sarkaysaa wuxuu ihi dhowr caano laga soo lisay oo yaro dhanaanaaday goortaad dhartaabaha jidhkaba dhididku qooyaayee nin dhadhamiyey waa garanayaa dhulay qaboojaane waxaa dhabaaga habeenkaa ninkii dhamagalxoodkooda dhalaannimo qodxii kugu mudaan kaaga soo dhacay ya salaam wuxuu adeegsaday dhadhanka adiga oo markaa imkaasaan waxaan u qabray waa tahay waxaan iminka gabayda aad dhegaysanaysaan baan doonayaa inaad marka dambe dhegaysanaysaan ilka qoto dheer inaad ku dhegaysataan baan jeclahay waan idin qalabaynayaa qalabka dooqa ayaan doonayaa bal intaan maanta idinka dhiibi karo inaan idinka dhiibo oo aad si cilmiya u dhegaysataan markaad dhegaysanaysaan waa tahay cali nuux baa wuxuu doonay inuu habeenoolisi ogaadeen isku diro nabiga guba la yidhaaho ayuu doonay inuu markaasi wuxuu leeyahay geelii ogaadeen buu wuxuu ku leeyahay geelii waxaa dhacay habenoolis baa dhacday buu leeyahay markaa wuxuu doonayaa inay hubka gurtaan waxay ku kaliftay waxay ku kaliftay waa taadilini gabayaagu mid baa imika idiin sheegay dareenka soo maray urta mid baa idiin sheegay ka maqalka ka idiin soo maray dhadhanka waxaa idiin sheegay mid aragga idiin soo maray wuxuu isugu daray saddex dareen buu isugu daray mar qura urta iyo dhadhanka iyo maqalka wuxuu doonayaa inay hubka qaataan oo wuxuu doonayaa 5 wado inuu kaga yimaado ayuu doonayaa siduu bal u adeegsanayo u fiirso bal siduu u adeegsanayo u fiirso isagoo dildilihii bisha iyo dacashihaaneed leh oo wada duluuluca hayuu dil joogaa
dambarkiisu weydiin uraa waana daba taali buuri bal saddexdaa bayd qalabka ku jira u fiirso wuxuu yidhi isagoo dildilihii bisha iyo dacashii haaleedle halkaa muxuu adeegsaday aragga oo subadii buu leeyahay eega wuxuu raaciyey baydkii labaad oo wada duluuluqahaya ayuu yidhi dul joogaa isagoo ololaya halkaana maqalkii buu adeegsaday haddana baydkii saddexaad buu gudba wuxuu yidhi dambarkiisu weydiin uraa waana daba taali buuri bal sida gabayaaga inaa gabayaaga kale jeceshihiin waad laga yaabaa inaad gabayaa hebel baa gabayaa hebel ka jeceshahay waxaa laga yaabaa inaad macnayn karin waxaad u kala jeceshahay siday qalabyada nimkaad kala hadiya u kala adeegsadaan qaar baa waddada idiin soo marayaan baa garanay oo aad ku xiiqaysaa maantoo dhan buu qabayaa midka qaban maysa in halkaasaa maantoo dhan boqol intuu tiriyo ayaa beedaad ka qabatay waayeysaa waayo muug helin horta waa inuu gabayaagu fahmo ciddan ula hadlayaa waxay tahay waa inaad garto halkaan kaa xadaltaynayo iyo goortaan ku xadaltayn karo iyo qalabyada kuwaan ma maqalkiiyo urtaan iskugu dartaa ma dhadhankiiyo dhadhamintaan iskugu dartaa ma arag iyo haddaan indhoolayaal la hadlayo aragga ku badin maayo qolay dhala xagga maqalkaan aad u adeegsanayaa eeg haddaad imika taa gabayaa u tiri qoladan aad bal waa gabayadooda dawar waynaa xagga wada maqalka sidii koorta iyo cub oo la sulay koroma buubaala ama beelo kaynaana oo kor u hayaamaya sidii xeelka kaarada jabshay iyo wabi karaa dhaafay ama habarkukeegii wadaa waa ka dhagaala baa lagu hadlaa ka kaydhaala ee wada maqalka ah waa wada saqadh markaa waxaad isticmaalaysaa sawirada saqadha ayaad dhinoolaha ku isticmaalaysaa oo weligaa xagga saqadhaad maraysaa haddaad dhinoolaha la hadlayso waaya yani kow mid walba waxbaad kula hadlaysaa mid walba luqadda uu garanaya baad u fulan baad kula hadlaysaa kow qofka indhaha qaba ee dhagaalana malaa sawirkaa u wanaagsan aad kula hadasho oo aad yani qolbankiisaad kula hadlayso waa tahay intaa waxbaa dheer intaasi waxa weeye waxaan tibaax yar ka bixiyey anigoo og halkaasi qotalaa looga sii hadli karaa laakiinse waxaan doonayaa inaan si yaroo guudmana aan waxyaaba badan guud cararo si aan waktigan kooban aan uga gaadhsiin karo wax yar canwaanada inaan idiin sheego waxaanaanu ka shaqayno marka aanu jaamacadaha joogno waxaanaanu ka shaqayno inaad wax ka fahamtaan si guud calaawiinteena hadii aqriyo waddooyinka loo soo marayo qofka biniaadamka inay dareemeyaasha tahay baan idiin sheegay qodobkaan doonaya inaan ku daro sugayahanka laga rabo amba ha sheekaynayo amba ha gabayayo waxaa laga rabaa inaad fahamto maskaxda biniaadamku maaha mid maqal iyo wax keliya uun ku kooban maaha iyo arag keliya ku kooban maaha macluumaadka u yimaada maskaxda biniaadamka ee wararka ay hesho maskaxda biniaadamku markay soo gaadhaan awood kalay leedahay maskaxda biniaadamku waxay leedahay inay wararkaa isu geyso oo ay kala shaandhayso oo ay judgment gaadho go'aanay soo saartaa go'aamo way evaluate garaysaa way qiimaysaa maskaxda biniaadamku warka iskama qaadato un halkan waxaa ku jira combyuutar warkan aad u sheegtay axadaya oo ana furfuraya oo isu geynaya oo go'aamo ka soo saaraya baa ku jira halkan markaan anigu gabayayo waxaa la iga baahan yahay inaan qofkan aan la hadlayo aanan yasin combyuutarkaan hor fadhiyaa waa combyuutar caqli badan wuxuu leeyahay imagination wax wararka uu helay isagaa shaandhaysta isagaa laba u geeyo oo afar ka dhiga isagaa inta wax marka loo sheego waa kaana waa run yidhaha kaana waa been yidhaha judgment isagaa sameeya isagaa kala saaraya isagaa qiimeeyo oo yidhaha waxaas waa wax wanaagsan waxaasna waa wax xun waa go'aamada oo dhan maskaxdaada lay ku jiraan waxaan akhriyayo haddaan ixtiraami garan waayo gabayaanimadeeduna ma jirto haddaan taa garan kari waayo waa inaan garto inaan kaa qaybgeliyo go'aamada inaad ila qaadato waa inaan badh uga tago hadalka markaan idhaa hegstano waa inaan kuu daayo inaad saafato oo aan ogahay waayo imaginationkaagaad shaqaynaya marba waxaan kaaga dhigayaa si aan tajribanka waxaan doonayaa go'aamadan gaadhayo inaad ila gaadho adigu oo aan ku ixtiraamo markaa gabaygaad jeclaysanaysaa gabayga waxaad ku jeclaysataa waxaa ka mid ah
go'aamada ayaa qofka kaa qayb geliya adiga kaa qayb geliya go'aamada waad ka jeceshay qofka kale ee aan ku warka sidiisa kugu sheegin maxaa ka mid ah wuxuu gabayaagu isticmaalaa su'aalo gabayaagu wuxuu isticmaalaa su'aalo gabayaagu wuxuu isticmaalaa su'aalo codkaad ku dheerbiya gabayaagu wuxuu isticmaalaa su'aalo su'aalaha uu isticmaalayo wuxuu uga jeedaa aduu su'aalku weydiinaya markuu gabayo miyaanay cayn ka ahay buu koranaya waxaasuu ka hadhayaa isagu warkuu ku odhan lahaa mee waa caynkaa kugu odhan lahaa ayuu ka xishoonaya inuu ku idhaaho aduu kaa qayb gelinayaa markaasuu koranaya go-aanka inaad la gaadhaa buu jeceliya ina cabdilla xasan baa la soo weeraray waxaa weeraray ingiriis dayuuraduu ku weeraray waxaanu arag baa ku dhacay waxaa naftii doontay inay cararto wuxuu is yidhi waatan sayidka iska ligi jirtay adoo cararayaa lagu arkay muxuu dee markaa sameeya wuxuu doonay inuu ku qanciyo ku leeyahy wallahi cararkaygu inaan carara waa daw buu doonaya inuu dhaho markaa wuxuu doonaya aduu kaa qayb gelinaya doodii wuxuu ku leeyaha coomaadayaal xiibayay cadda ka keeneen cirkii iyo dhulkii bay isqabsadeen caleeriqdoodii caamir waa saleelay anaa haatan caymadii adigu baa caqlaad leedahee carar maxaa dhaafti kuuli markaasaad olaysaa wallahi waa iska horayna iska carar badan wuxuu doonayaa judgment go-aanka ila qaadu ku leeyahay go-aanka miyaanay saxaynaan carraa buu ku leeyahay aduu kaa qayb geliya foom su-aala buu ku weydiinayaa oo uu doonayaa inaad kala qayb gasho wuxuu ku leeyahay faarax nuur qusrooda foor wada qayaxan qiiran garanayo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhageene maanigaa midiya lay qarshaa laygu qali doona buu wax kale kuma darin aduu su-aalku weydiiyey maanaa midiya lay qarshaa laygu qali doono hoosta waxaad kolaysaa maya lagugu qali kari maayo aduu ku gaayay go-aanka adaa odhanaya isagu muu odhan toos mu odhan su-aal buu wuxuu deform question buu ku weydiinaya su-aal buu ku weydiinaya su-aashaa markaa wuxuu doonayaa adigu isu jawaabto judgmentkiibuu adiga kaa qayb gelaya waa foomamka waa qaababka ugu sarreeya quruxda suugaanta inuu gabayaagu adiga wax ku weydiiyo dib adiga wax ku weydiiyo wuxuu yidhi ninkii loo jiray ismaaciil mire ayaa wuxuu arkay inan uu abti u yahay oo candhuuf tufaysa candhuufta hablu markay tufaana waynu naqaanaa waa markay balaayoobaan ayuu tufaya candhuuf weliyo tufaysuu arkay oo yara weydowday buu arkay kolkaasuu wuxuu yidhi geeyada la fuulaan xado iyo gabadhta iimowda waxaan ahay nin garabdaar lahoo gala u sheegaaye maxaa gabadhay dhashay godayna foorkaaga buudhi su-aal buu weydiiyey markaa garali markaa baaqigii wuu ka tegey isagu su-aalu buu ina weydiiyey maxaa gabadhay dhashay godayna foorkaaga hadduu odhan lahaa inantu way garcatay af soomaali dee waa qaliic kaaso ee kalda waxaa odhan kari maysid haddaad gabyayso hadduu yidhaha inantahay waad garcatay dee af maaha eeg siduu u dhigayo quruxdaday wixii oo dhan wuu wada hadoodilay hubuu saaray su-aal buu weydiiyey inantii haddaan wax kala jirin maxaa ku goday buu ku yidhi magalaysa is afgartay markaa inantii foom su-aaleed buu wax ku weydiinaya waa qaababka ugu sarreeya wax la isku weydiiyo matalan mar baa su-aal lagaga jawaabaa waa qaab iyaduna sugaanta loo yidhaahdo inaad su-aal kaga jawaabi karto aad kaga jawaabi karto matalan gabayga uu leeyahay bahalkii loo jeex xuseen dhiqle markii ay caruushada markay jabeen ina cabdilla xasan iyo berigay jabeen gabayga qayb libaax la yidhaahdo qayb libaax mar gabayga la yidhaahdo ayaa wuxuu kaga hadlay qayash baash libaax baa qayb yidhi neef libaax baa dhurwaa qayb yidhi neef waa neef baa la qaybinayay soon lama qaybinayay hilib baa la qaybinayay qayash baash libaax baa dhurwaa qayb yidhi neef wuxuu yidhi hilbaa jeex bal qabo qoondhan baa naha markaasuu qabaabaalihii qoonsadoodayey dhirbaaxuu ilkaga qaaday oo hool ka soo qubay af qashuus leh goortuu dhintuu sii qataabsaday dacwuu markaa soo qabsaday sida qisaaseed wuxuu yidhi qashaafila xunay tari qadaarkaaga qumudee baruuriya lagii qawlihii kuruska waxay tidhi islow qaybiya neefka wada qaado markaasaa dugaagii qabsaday qoomka dafley isaguba qareen male dayoy qayliyaha hare inagoo quluudhana maxaa qada inoo waayey su-aal bay weydiiseen maaragtaa dugaagii waxay su-aal weydiiyeen
waxay su'aal weydiiyeen dacwadii waxay yidhahdeen inagoo quruudhana maxaa qada inoo waayey bal siday uga jawaabtay daawo si kale waxay tidhi kii inoo qab weynaaba waa qooqa wax loo dilaye anigoo qadaarkana miyaa qabash ka soo waqsan bay tihi su'aal bay weydiisay maxay sheeganaysaa bay tihi su'aal bay su'aal kaga jawaabtay qudhaydaan u yaabee miyaa idin khasaariyey bay tihi haddana su-aashii bay ku sii watay eeg waa foom kale oo su-aasha